haddii nabad la waayo waxaa dhici doona dhirbaxadii mid ka xun. xamse cawke waxaan ku sugannahay jiidda hore ee Qurlugud. Maanta jiidda waxaa nagu soo booqday Generaal Caare oo jiidda hore ku sugan. Generaal Caare bal soo dhawow. waa dhowahay xamse cawke. Bal ka waran dareenka. aad iyo aad baa dareenka ku fiican. tan aaladan la sheegayn baan keenay. haddii allah uu doorgalo mid kalena waan keenayaa insha allah. ciidamadu way isdaba socdaan. aniguna gogoshaad soo dhigan doonaa. haddii nabad la waayo waxaa dhici doona dhirbaxadii mid ka xun. laakiin waxaan ku dadaalaynaa inaynu difaac ku jirno, aynu nabad raadinno. haddii la waayana oo cidina soo weerarto ama dhulka aanu leenahay cid cag soo dhigtana wixii ka dhici doona baa ilaahay dee ka warrami doonaa insha allah. Korneyl Caare rag baa ka hadlaya buuhoodlo ka hanjabay oo lahaa Qurlugud baan gubaynaa. Hadda maanta jiiddii horead ku suganta. Fariintaas kuwa u diraysa maxay tahay? waxba lagama qaadin kuwii hore la gubayba. magaalo la gubaabay noqon doontaa. waxaan leeyahay sida ku salaadiintayada iyo boqorrada iyo ugaasyadu nabadda u doonayaan u doona. haddaa u dooni weydaan dee waxa ka shambarin. waxaan leeyahay walaalaa tihiin, dad walaalaa oo meel kasoo wada dhacay baa tihiin, dad isu soo gurmuday baa tihiin, dad isku gacana baa tihiin, dad awal la wada dhiman jiray maantana wada dhimanaya baa tihiin. gacmaha is haysta, tashuushka iska ilaaliya, warxuma tashiirku yuudin ku soo gabanin. dad badan baa jira oo ka naxaya iskaashigiinna iyo difaaca iyo sidaa isugu soo hileebaysaan. iska ilaaliya. nin walowba ninka kale walaalkaas soo dhowey, gogosha qaybsada, nafta qaybsada. kuwii isdhaawac qaadaya isu dhimanaya baa tihiin. kuwii maanta halkan isugu yimi ee isdifaacayay ayaa tihiin. ciidanka qarankana garbaha ku qabsada. waa ciidankiinnii jamhuuriyadda somalilan maanta idinkaa u ciidana. haddii wax badan ay naga xumaadeen waynu toosinaynaa. iska ilaaliya kuwa xun ee labada dhinacba ka soo jeeda. iska ilaaliya. waa dad xun oo waxa isu tihiin aan garanayn oo siyaasad iyo balaayo ka shaqeeya. iska ilaaliya, isu soo hileeba. intaasaan iyaga odhan. daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan sheerta iyo falowda nala ogow lana wadaag asxaabtaada si ay uga mid noqdaan dadka halkan ka daawada muuqaalada xiisaha leh. Thank you.